بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عنو ونحسن كسر هذا برنامج تاريخ وعيمو وحلي دونه سيدي كعانكي بركيسناي دالك كو قبسدي برنامج كان oo inoo ahaan doona barnaamij taxana ah ayaan waxaan ugu hadli doonaa sidii kacaankii wadanka uu afgambiyay taladii dalkana gacanta ugu dhigay intaanan barnaamijkan u guda gelin dhageystayaal waxaan idinka codsanaynaa inaad fadlan subscribe saartaan channelkeena xaqiiq sheeg TV like raysan share raysan comment raysan gudagalna barnaamijkeena maanta waxaanu ka bilaabaynaa doorashooyinkii ka dhacay jamhuuriyadda Soomaaliya 1968kii waxa aqlabiyadii ku guuleystay xisbigii waqtigaasi talada dalka hayay la oran jiray Israel inkastoo axsaab tiradoodu ay ka badneed 60 ay ka qayb qaateen doorashooyinkii wadanka ka dhacay hase yeeshee mudanayaashii baarlamaanka ay ku guuleystay doorashooyinkaasi ay ka tirsanaa asxaabtii mucaaradka dhammaantood waxay ku biireen xisbigii talada dalka ee Israel marka laga reebo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya waxayna taasi u muuqatay in jamhuuriyaddii Soomaalida markii uu horeysay ay yeelatay xisbi kaliya hase yeeshee dowladdaasi muddo dheer ma aysan jirin madaxweynihii dowladdaasi Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa 15 Oktoobar 1969kii lagu dilay magaalada Laascaanood isagoo markaasi booqanayay gobolada waqooyiga ku yaala ee abaari ka taagneed madaxweynaha waxaa dilay mid ka mid ah askartii booliiska ee ilaalinaysay ra'iisul wasaarihii dalka Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal markii shilkaasi dhacay wadanka dibadda ayuu uga maqnaa waxa uu joogay dalka Mareykanka halkaasi uu qayb galay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee sanadkaasi dhacay kulankaasi Mr. Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxa uu ka hadlay 7 Oktoobar 1969kii oo 2 isbuuc ay ka horeysay waqtigii talada dalku ciidamadu ay la wareegeen hadalkii maalintaasi uu Mr. Cigaal ka jeediyay waxa kamid ah waxyaabihii uu doodayay xuquuqda dadka Falastiiniyiinta in dalweynaha Shiinaha loo ogolaado qaramada midoobay wadankaas oo aad sidaad maanta ka warqabtaan kamid ah wadamada leh veto power-ka ama awoodda diidmada qayaxan leh qaramada ka dhaxlay qaramada midoobay oo xubinna ka ah golaha ammaanka qaramada midoobay bal qadar aan idinka maqashiin hadalkii maalintaasi uu jeediyay Mr. Cigaal cannot ask a state to respect our authority when we exclude that state from participation in our decision-making machinery. In addition, we cannot expect the authority of the United Nations to carry full weight. waxa uu yiri Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal suurtagal ma aha in dal aynu ka doono inuu xushmeeyo awoodda qaramada midoobay iyadoo dalkaasi ay iska hor istaagnay inuu qayb ka ahaado qaabka ay go'aanada ku gaarto waxa taasi soo raacda buu yiri inaan la filanin awoodda jimciyadda quruumaha ka dhexeysa in insan yeelato haddii mabda ahayn adduunyada wax wadaagto indhaha laga qabsado waxa igu filan buu yiri inaan iraahdo in aniga iyo waqtigayga aan taageeri doono sidii aan awalba markasta u taageeri jirnay wixii go'aan ay suuragelinayo in jamhuuriyadda dadka Shiinaha ay kaalintooda xaq u leeyihiin ay ka galaan qaramada midoobay haddii ay aan lahayd golaha loo dhan yahay ee ammaanka iyo hay'adaha kale haddaba Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal markii loo sheegay in madaxweynihii dalka la dilay ayuu si degdeg ah dalka dib ugu soo laabtay si uu u howlgalo sidii madaxweyne cusub loo dooran lahaa oo bedela madaxweynihii hore ee Cabdirashiid Cali Sharmaake Allah u naxariistay ra'iisul wasaaraha iyo intii taageersanayd waxay dadaal u galeen in la doorto Xaaji Muuse Boqor Allah u naxariistay is afgarad dheer kadib
kulankii u dambeeyay waxaa go'aan lagu gaaray in la doorto xaaji muuse boqor habeennimadii Oktoobar 20-kii hase yeeshee laguma simin in taladaasi meel marto oo waxaa dalka afgembi kula wareegay ciidamadii qalabka siday ee uu hogaaminayay Generaal Maxamed Siyaad Barre.